nimada xisbigaasi gudoomiyaha xisbiga Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in Jamaal Cali Xuseen oo ah musharaxa xisbiga UCID uu xilligiisii ka dhamaaday oo ay tahay inuu hor yimaado golaha dhexe xisbigaasi balse Jamaal Cali Xuseen waxa uu sheegay oo ku doodaya in musharaxnimadiisu ay tahay mid sax ah oo ay ku timid qaab doorasho hadaba Cabdirasaaq Xaaji Catoosh ayaa waxa uu khadka telefoonka markii hore kula hadlay gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe شرحا مركي أنو يدسنا مشرح كدقنا أوربانهن شرحنا فقوريا مشرح مدحونية كحيين كيس وحا صوت دوران كليا ورهولا كقداء دورشوية الديقانك waxaa intaa ka dhacay waxa weeye markii aanu musharax ka dhignaan dowladda hoose galay markii saliid baan ka muujinay hogaankiisa annagoo saliidga ka muujinay oo dalka ku daafnay doorashadii ayaa haddana 3 sano iyo barkii marka ka soo dambeysay waxaa nagu soo badinayay qiimo dadkina leeyihiin xisbigii hogaanka aniga waan sharaxayna maaha mid gudbin kara oo xisbigii guuli keeni kara Jamaal wuxuu ku doodayaa in markii musharaxa uu noqonayay xisbigan UCID xisbigu uu xisbi ahaa maya hana waxa lagu celiyaa loo asli ururda hada loo asli ururadi baan la tartamay qaarna markaas abuurnay anaga ururda lagu celiyay sharcigu marka wuxuu qoriyaa musharaxa iyo musharaxiinta madaxweynaha waxa soo saari karo xisbiga amba ururka ka gudba deegaanka Faysal Jamaal wuxuu ku doodayaa anigu doorashan ku noqday musharax madaxweyne golo dhaxa i doortay adigana waxaad leedahay in Jamaal la bedelo Jamaal haduu sheegay waa ay doortay golihii dhexe doortay ayaa taliyo ka muujiyay uu review garanaya uu bogi waayay kii doorta hadda leh ma wadi karaan kan halala tarsamo marka waa inuu golihii dhexe hor yimaada soo ma jiro nidaam UCID ahaan idin yaalo oo hadii isqabqabsi caynkan ah uu dhaco lagu xalin karo nidaam baa yaala soo jirayna xisbi daaweyn لما كانوا يستقبلون نظام كبار الآخرين حكموا من نظام كبار فاعلين وحكموا إركة كان مجرد طريقة محكمة وحلوت هنا وحياة وحيلان واحد الدنيا كلي سنين ما كان لابد الدنيا كيلا شرعي على الإيدي كي شرعي عاد شرويان لو دورتها صباحي يمكن شرعي بتجوين حزب بحزب وكهلاوي كل هذا حين مادو بروسس كي قاطو كنت شرع قولي هذا كنت شرع كارتي مو قادم مش علم وكاد العربي لأنه حين شرعي مع أربعة هيدين آخر شرعي gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe ayuu kaasi u waramay wariyahayaga Cabdirasaaq Xaaji Catoosh isla Catoosh ayaa waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray Jamaal Cali Xuseen oo uu weydiiyay bal waxa Faysal isagoo isku hayaan والله إني أنا وح شخصية هذا أنا قد حياة ما بتشرح دبعته حويان دوني راح المتعدد عربي يزوم بقى حتى لقى دين ويا حتى شغل مشرح نومه لأن أنا فيصل يموت أنا قلنا حاله يقول دورته شروينا اللي يقول دورته ده حسب كده بروسيجر كيسي حولي يسمع صوت مرة مرة هذا الكا أعرف إنه قفكة أو خلاف واحد مدين لو صادح توري اللي دونه أيوه إن لو عرق على ذيه في حسب المدير أيام أنا نقول حاجة اللي يرد يدفع يا المهم marka soo koobo waaween gudoomiyaha UCID oo aanan dooneynin inaad adiga musharax u noqoto xisbiga UCID gudoomiyaha isagu awood uma laha golaha dhexe xisbiga UCID fadhiyo fariistay waa la codeeyay isaga gacanta ii taagay go'aamadii golaha dhexe isaga ayaa saxay warqadii saxay oo maxkamadda iyo hay'adaha la geeyay marka waxay waa sharci gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe wuxuu leeyahay xilliga Jamaal loo doortay musharaxnimada urbu ah UCID haddana waa xisbi oo waa in dib musharaxnimadii doorasho loo geliyo taa waxaan kaga jawaabayaa waa hadal aad iyo aad xaqiiqda uga fog oo maran xabaabisa sababtuna waxa weeyaan xisbiga UCID xisbi buu ahaa ururadii lama madaxayn saddexda xisbi qaran sidii loo maamulayay iyo sidii ururada loo maamulayay kala jaad bay ahaayeen 12 shuruudood baa looga baahnaa ururada xisbiga qaranka waxaa looga baahnaa 3 shuruudood mabay marin $25,000 baa la isaga baahnaa kun madax taabasho baa la isaga baahnaa hadday intaas oo dhan urur ay xisbiga UCID u noqday maxaa ay ula mid noqon waayeen ururadii kale ee waxyaalihi looga baahnaa Jamaal hadii gudoomiyihii uu leeyahay Jamaal musharaxnimadii way ka dhamaatay adigana aad leedahay aniga golo dhaxa i doortay ma nidaamkii xisbiga dhexdiisa ku kala baxdaan iyo wixii qaanuun iyo sharci idin dhiyaalay sharcigu baa lagu kala baxayaa marka walaal gudoomiyaha sharciga xisbiga ayuu jabiyay maxkamad baan la tigsan doonaa waxaan ku cadeyn doonaa waxaan ku hadlayaa in aanay wax haboon aanay ahayn xisbigana uu weetaayo marka sharciga xisbiga ayaan ku kala baxaynaa waxaan arkaynaa in xisbigii shuruudo aan jirin iyo hawl aan jirin iyo waxyaalo uu keenayo وهاجاكاسي waxa uu ahaa Jamaal Cali Xuseen oo ah musharaxa xisbiga UCID oo khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga